baraaruga dadkaygaanidha boqol kun oo jeere baaq waxaan u dirayaa dhammaan bilaadaadini muuqaalkeena waxaynu ku eegi doonaa 4 faa'iido oo dhulkaygu markaa uu leeyahay dhagteena waxaa laga yaabaa in qaar badan oo kamid ah bulshadeenu aysan ka warqabin ama ay ku baraarugsaneen qodobada soo socda oo ku saabsan faa'iidooyinka dhulkaygu uu leeyahay dhagteena taa beddelkeedana markaa ay ka haystaan fasiraad ama waxyaabo kale oo markaa ay ka aaminsan yihiin qaar badan oo kamid ah bulshadeenu waxay aaminsan yihiin in dhulkaygu uu yahay wasaq markaa dhigta ku aruurtay oo u baahan in markaa laga soo nadiifiyo dhigta qaybteeda dibadda ah waxa uu Allah subxaanahu wa ta'ala ku abuuray qanjiro markaa sameeya dhulkaygu marka la sameeyo kadib waxa uu dhulkaygu u dhaadhacaa dhinaca markaa gudaha dhigta dhulkaygu waxa uu markaa dhigteenu u leeyahay faa'iidooyin fara badan balse waxaynu ka soo qaadan doonaa 4 qodob oo dabcan aynu aragno inay tahay 4 qodob ee ugu muhiimsan inta muuqaalka la guda galin daawada aan ku xusuusiyo in muuqaalka aad laagilo saarto sidoo kalena aad si share gareyso si saaxiibo fara badan oo wanaagsan sidaan oo kale oo muuqaalka u gaaro mahadsanid waxa uu qoyaa dhigta waxaana uu ka ilaaliyaa qaleylka iyo sidoo kale culculka qodobka labaad dhulkaygu waxaa ku jirta maadada la dagaalanta jeermiska oo dhigta ka ilaalisa in markaa jeermisku uu waxgaarsiiyo qodobka saddexaad dhulkaygu waxa uu xuubka markaa maqalka ee dhigta uu ka ilaaliyaa in dhaawac uu soo gaaro oo si fudud wax kuma gaari karaan xuubka maqalka ee dhigta qodobka afaraad boorka wasaqda dhigta gasho iyo cayayaankaba waxaa ka ilaaliyo dhulkayga waxaana uu ka hor istaagaa in markaa dhigtu ay gudaha u galaan waxaana uu u shaqeeyaa sida wasaq celiye oo kale badanaa qofna uma baahna in dhegtiisa uu ka soo saaro ama uu ka nadiifiyo gebi ahaanba dhulkaygu khaasatan haddii uusan dhib ku helin weliba carruurtu dhagaha looma nadiifiyo ilaa iyo dhakhtar inuu ku taliyo mooyaane waxyaabaha keeno in dhegta la nadiifiyo waxaa ka mid ah marka dhulkaygu uu oodo guud ahaanba dhegta iyo sidoo kale marka uu yaraado maqalka waa muhiim in markaa laga fogaado in dhegta markaa la qoryeeyo maadaama uu dhaawac gaari karo xuubka maqalka dhegta taasi oo haddii uu dilaacana markaa noqon karta halis guud ahaan daawadayaal muuqaalkeenii koobnaa ee aynu kaga hadleynay 4 faa'iido oo dhulkaygu uu leeyahay dhigteena intaas ayaynu ku soo koobaynaa taliya inta muuqaal ka lamid aynu ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo baraaruga dadkaygaanidha boqol kun oo jeere baaq waxaan u dirayaa dhammaan bilaadaadini